magacaygu waa ciise maxamed cawad marka hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo xildhibaanada sharafta leh horteena fadhiya ugu horeeyo xildhibaan daahir amiin jeesow iyo xildhibaanad xaniife maxamed iyo ustaadka kale maxamed sheekh xasan oo bulshada rayidka ka socda midda koowaad waxaan rabaa inaan ku hormaro talada ah gurmadka dadka dhibaataysan waxaan rabaa in dowladda federaalka Soomaaliya aan u soo jeediyo in la sameeyo sanduuq dhaqaale oo joogto ah intaysan imaanin dhibaatadan ka hor sanduuqaas oo wareegaya shacabkana ay ka qayb qaadanayaan dhibaatooyinka dhici kara si dadka maadaama bulshadu ay tahay dowlad bulshada la'aanteeda ma jiri karto dowlad la'aanteedna bulshada ma jiri karto si bulshadu ay u taageerto dhibaatooyinka imaan doona ha loo sameeyo sanduuq dhaqaale ay ku aruuriyaan masiibo imaan doonta taas waa talada koowaad aan u soo jeedinayo dowladda su'aasha koowaad aan rabo inaan weydiiyo mudanayaasha sharafta leh waxaa waaye waxaa tihiin wakiiladii bulshada rayidka ama shacabka ayaa tihiin ku matalayay danaha shacabka waxaan ognahay 3 sano ee ugu dambeysay baarlamaankii 8aadkii kale 9aad iyo inuu joogo daahir amiin jeesow mudanaha sharafta leh oo kamid yahay 3 sano ee ugu dambeysay dhibaatadani way dhacday way soo noqotay 3 xilliba way soo noqotay 3 sano aan joognay miisaaniyadii la keenay baarlamaanka waxaa ku jirtay 2 marba kii hadda ugu dambeeyay bishan aan ku jirno October wuxuu ahay xaqsiinta ama gunada baarlamaanka inay baas gareeyeen ma waxaad meesha u joogtiin dana idinkeedan quseeya inaad dhaqaale samaysataan mise waxa meesha u joogtiin shacabka iyo dhibaatada imaan doonto wali ma aragno guno loo qoray gargaar ama dhibaato imaan doonto meel loo sii dhigay ma aragno saarta gargaarka masiibooyinka sanduuqeeda waxa lagu shubo ma aragno doodeeda baarlamaanka iyadoo la geeyay 3 sano ugu dambeysay maxay u dhici weysay bulshada aad matashiin dhibaatada imaan doonto sanduuq maxaa loogu sameeyay waayay سؤال أدو في عن واي أركتدنا والإسلاق قاتي قفكي بثولي هاي هل سؤال شيء سمرك ودينا عن هل دقيق نوسن كبدين الله مقعيق عبد الله أحمد برخلة مركه روح رواينا ما عدي دمان بعد جوب جوك يحل بان هذا شرفت له قالها شعبك يهرجوه يحل بان جيسو يحل بان حنيفة يو سيدو كله مستمع يحل بان محمد شيخ حسن أنت اسكدي وحن ربا سؤال شيء دينا توسو قاله haddii aan ka hadlo waxay ku wajahantahay kala xildhibaan amiin jeesow qaasatan gobolka hiiraan fatahaada adag oo maanta ka jirto mudane xildhibaan xataa ay xildhibaan kala deegaankiisa laga soo doortay uu yahay hirshabeelle qaasatan hiiraan fatahaadan way soo laalaabanaysay intii aad xildhibaanka ahaday markii la fiiriyo xilligii xasan sheekh madaxweynaha ahay iyo xilliga hadda jiro waxaa jiro isbedelo badan oo webiga shabeelle uu sameeyey xildhibaanada golaha shacabka 3 sano ee la soo dhaafay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa ka jiray daruuf badan sida lacagihii oo aad iyo aad dadku ay dhibaato ugu qabeen fatahaad oo mar walba saa'id ahaday oo xilligan ba aysan ku sii jirin hadda la joogo oo musiibadeedu ay sii badanayso aeroboorkii oo haddii hadda dadka gurmad loo fidi lahay aeroboorkii laga degi lahay oo arkay mar walba ay biyo galaan xildhibaano waxaa tihiin hiiraan matalo qaasatan gobolka hiiraan ka soo jeedo maxaa idiga qorshaysan oo qorshaha aad meel ka dhigteen maxaad u sameey wayseen inaad waxyaabahan soo laalaabana inaad go'aan ka gaartaan oo bulshada iyo dawladda adigoo kaashanayo aad u sameey wayseen dhibaatada mar walba soo laabanayso qorshe looga hortagi karo waa maadsanta هذا ما سنتهي نكان كلا سيننا بسم الله الرحمن الرحيم المقعي ومحا أمين عبد الله وحان أمد علني حلبان هذا شرفت له يا تيفي قبجوب أرنتا بلد وينه حي أمو قطعين تاي هيست علىك سومالي توسو isku tiirsad bakiina taag daran maanta beledweyne wuxuu baahan tahay taageeradii maaragtay ish haddii ay heestaas si dhaba haddaan
wada aaminsanahay inay maaragta ay sheegaan ay maaragta ay sheeg sidii loo baahnaa aan uga dhabayno waxaan rabaa inaan laba su-aalaan rabay laakiin maaragta ay sheegeen hal maadaama ku soo koobtay balweyne xaaladeedu waa qaylo dhaan waa xaalad maaragta ay sheegeen aan fadhi aan u baahnayn maadaama xildhibaanada laga soo doorto deegaankaas ee ka soo jeeda ay badankood meelaha hadda ay joogaan maxaa diiday inay mar hore tagaan halkaas ka soo qayliyaan ay halkaas maaragta qayldhaanta kasoo diraan ay dadka ugu hormaraan waxa la sugaa in farmaajo khayr tagaan ay halkan jooga maxaa diidaya inay arrintaas maaragta ay dadka ayagu u noqdaan tusaale Soomaalidu waa dad markii qof talaabada qaado mugtay ka daba qaado marka maxaa war kaliya waxa u malayn inuu meeshaas waxa uusan ka qaadi karin marka maxaa diiday inaad tagtiin xagga ka soo maaragta ay sheegeen adinku dadka u hormartaan way aad u mahadsantihiin saddexda su'aalaan hadda qaadanayna kadib su'aalaha kale aad haysaana waa gudbinaynaa labada su'aal oo hore toos maadaama xildhibaan Amin Jeesow ay quseeyaan isaga siinayna su'aashii ugu dambeysayna waxaan siinaynaa xildhibaan Xaniifa aad u mahadsanyihiin saddexda su'aalood way taabanayaan aniga waana kormarayaa aragtideydaan kormarayaa ciise waa mahadsan tahay su-aashaada si fiican aan u fahmay waa in la sameeyaa muxuu ahaay maxaad u samayn wayseen wax aad gargaarka ugu talagashiin sharcigii oo xaqsiinta siyaasiyiinta waa samayseen saas oo ma exactly sharciga xaqsiinta horta marka ugu horeysa aan kuu sheegay adiga iyo dadkan maanta meesha fadhiya ee future-ka dalkan usoo baxayo anfacaya aniga xildhibaan Jeesow usuma sameynin aniga sababtoo ah wadankeena qofka adduunyada qofku waxaa lagu cabiraa dalkiisa waxaa lagu cabiraa siyaasiga markii la rabo in Soomaaliya la weydiiyo markuu siyaasigeeda qashinka jidadka aruursanayo ee bajaaj oo wada asagoo ra'iisul wasaare soo noqday oo haysan wax dhaqaaleynay wadankaas waxaa loo arkaa wadan aanan jirin marka quruxda wadankaaga siyaasigaaga mustaqbalka oo adag kii mustaqbalka tahay future kii ka horeeyay quruxdiisa ayaa wadankana qurxanaanaya waa sharci dalka uu leeyahay ma aha sharci Jeesow iyo Xaniifi iyo u daneynaya ma aha mana doonayo in hadda la siyaasadeeyo wiyadii soo fatahay iyo shuruucda dalka aan u sameyn in lasku daro oo la siyaasadeeyo dooni ma marka dhalinyarada tahay waxaan ku leeyahay think una fikir muxuu ahay sida toosan way mustaqbalka dalka adiga ah xukuumay insha Allah Cabdullaahi aad u mahadsan tahay xaqsiinta ka jawaabtay laakiin gunnada maxaa gunno ugu talagelay weysan adiga xaqsiinta waa fahnay iska qaata xaqsiinta laakiin gunnada maxaa ugu talagelay weysan gunnada waa runta dalkeena dhaqaalahiisa ayaa inta badan saamaxaynin in wax walba loo diyaar garo waxaad qofka dhalinyarada ee aqoon-yahanka waxaa la rabaa inuu cabiraad sameeyo war dalkan meesha ku dhacay fiir 69kii ilaa iyo burburkii 90meeyadii ciidankeena wuxuu gaaray 200,000 oo ciidamo ahaan samaysan ciidanka ugu xooga badan laanayna hubka ugu culusan soo gadanaynay maanta ma samayn karnaa may meeshaan ku dhacnay iyo meesha hadda aan joogno cabirka qaada markaad tahay qof dhalinyaro oo sameynaa intaad su'aasha qof weydiinin koor adag is xisaabi mustaqbalka waa la sameynayaa gargaar iyo sanduuq gaar oo dadka loo mid laakiin hadda bishaan markay ciidamada ay qaataan saadaba shaqaalaha rayidka qaadanaya sidaasaan ku soconnaa dhaqaaleena iyo heerka dalkeena uu taagan yahay ayaa sidaas Cabdullaahi waa mahadsan tahay waa runtaa waa fiicneed in laga hortago way fiicneed ay taagan tahay sababta aan u leeyahay waxay tahay waa fiicneed aan u leeyahay dawladda federaalka statistic kama sameyn karto meel ka baxsan siinka dheer iyo dirmoole dawlad goboleedyada dalka oo ka dhisan ayaa la rabaa inay soo sameystaan daraasaad soo sameystaan soo qiimeystaan kadib dawladda federaalka ay ugu yimaadeen oo yiraahdeen mashruucan
ayaan rabnaa oo dadka aanfo u geystay in la sameeyo. Hiirshabeelle sooma samaysanin webiga beledweyne oo 3 sano oo isku xigta soo baxay sooma ayna samaysan oo ma ayna dhihin dhibaatadan webiga noocaan ah inta injineero wataan ay soo daraasaystaan ay soo qiimaystaan dowladda federaalka ay ugu yimaadeen annaga xildhibaanadii ka soo jeedayaan dowladdan kula xisaabtami lahayn raadiye hay'ad raadiye budget ha loo raadiyo ayaan dhihi lahayn lama sameyn inkii iska dhaafay sanadkii 2018 kanaaladii ay biimareenka noqday ee webiga muxuu ahaa uu jabsaday lama aasin marka dembiga ma aha dembi dowladda federaalka ay leedahay dembiga waa dembi muxuu ahay masiibada dhulkeena ku dhacday oo federaalka wax la yiraahdo dhagaan oo gol shabay aan dowlad dhisan oo aan hoostana dadkeeda ka ogeena taas waaye anigu markaas aasaan idin leeyahay federaal diidmi laakiin waxaan u jeedaa federaalka inuu fidni yahay oo waxaan isku halaynta oo dhibaatadeeda leeyahay maxamed amiin waad mahadsan tahay أنا كل أركتدي أنا وجوابايا حد يدي إن أي حلبان هذا تجان حنود ديدي سنة كي هروا أفرتنا شنها بيران لح في دي داتك لكن هذا حنود ديدي حلقي عم بحلين سدح بري ما أنت كو أفر أنت أو زائد داتك وصعده مركي عم بحلين البورك أنا قوي وأنا وين ديار الهليكوبتر أنت نقاد نوضع سوا وين أو ديدن ويا وين البورك واقعية حتى ملاينا بري إن ديارتك ديجا كرت. سل سؤالش دنبه هذه سكلة أو هذا جوابي كرت جرتو محدي دايا ديجانا دا لبعتدان أي كجرتو حلبانا دا كسر جيدا أما كوا أن كسر جيدين سومالي نمو إن لبحو وماشي لتجو ضدك هرمود لو نقضه محدي دايا. runtii waxma diidayso welibana inaan tagno oo shacabkeeni aan u gargaarnana anaga ka jecel dadka kale aniga for example oo kale degmada aan matalo ama aan ka soo jeedo waa degmada oo dhibaataan ku dhacday inaan tagana runtii sharfay ahaan lahayd nafsadeeda iyo moralkayga support u ahaan lahayd waan jeclaan lahaa laakiin daruufaha amniga iyo daruufaha oo dhulkii oo qoyan oo maxaan dhahay diyaaradtay karin iyo accesskii oo adag baan u joognaa waana ku holanahay insha Allah waxaan rajaynaynaa in ayaamaha soo socdo hadaan biri tagin biri dambe inaan tagi doono oo aan gurmad ka sameeyno se waxaan dhihi lahaa anaga uma ahan mas'uuliyadda anaga xilbaanadii aan matalaadii shacabka nahay laakiin Soomaali oo dhan la rabaa qof kasto gurmad sameyn karo oo tagi karo oo awoodo inuu wax uun ka qabto in la wada tago uun la dhigin xilbaanadii inay tagaan ahayd oo anagu uun lagu seexano oo anoo og in Soomaalida hadda waxaan anaga qabanayna ka badan ay Soomaalida sameynayso waxaan kala rabaa su'aashii xaqsiinta siyaasiyiinta sharciga aan ansixino oo wiilkan sheegay horta sideena markaan sharci dejinayno kuma beesgaray nafteen waxaan ku beesgarayna baahiyaha wadanka ka jirto aan lagu beesgareeyaa sharcigaas wuxuu ka mid yahay sharciyada aan dejinay hadda weegaan ugu dambeeyay almost waxaan akhrinaa u maleynaa akhrinta koowaad iyo akhrinta labaad marayay 5 iyo wax ka badan oo sharci marka sharciyadaas mid ka yahay laakiin Soomaalida focuskeeda always waxay u arkaan siyaasiyiinta inay ka shaqeeyaan interestooda gaarka ah aniga maanta siyaasi aan ahay xilbaan ay bari ma ahaan doono adaa bari noqon doontid marka waxaa loo baahan yahay in wadankeena system uu lahaado 30 sano oo burburkana runtii wadanka dib wax badan dib u dhacay miisaanadeena iyo budgetkeena aad buu u yar yahay marka waxaan uun tijaabinaynaa in shuruuc iyo system dawladeed degan oo set ah in la helo ay muhiimadu tahay ma dhalinyarada bari siyaasiyiinta noqon rabana dan ugu jirto ka fiirsan ha anagana bari aan naftirkeen limit aan ku lahaanayno hadda hal wadan oo aad tusaale soo qaadan kartaan oo sidaas sameeyay ma jira oo siyaasiyiintiisa bari markay xilka ka degaan wadan I don't think wadan aan lahayn ma jiraba wadan aan lahayn haddii la sheego waxa waaye shacabka Soomaaliyeed abolojaysan siinayna shacabka caadan si lagu kasali lahay hal wadan aan lahayn ma jiraba sharcigaasi aan lahayn barnaamijyada kale insha Allah ku soo qaadan doonaa aad u